بريتو waxaa dhici doona 7 kulan oo Premier League ayaa dhici doona taasoo ciyaaraha ugu xiisaha badan ay bilaabi doonaan kooxda Nottingham Forest iyo City haddii ay guuleysato hoggaanka ayay dib u qaban doontaa taasoo hadda 2 dhibic laga leeyahay oo kooxda Arsenal waxay leedahay 39 dhibic ay leedahay City-na 37 ayay leedahay waxaan la soconaa City in ciyaaryahano ay ka dhaawacayeen oo Doku wili oo ka maqayahay iyo John Stone laakiin wararka ugu weyn waxaa la leeyahay Rodri ayaa dib u soo noqday lama oga in ciyaartan uu ku bilaabi doono iyo in uusan ku bilaabi doono iyo kaydka inuu soo fadhiisan doono in kale laakiin waxaan u malay doonaa wuxuu aad iyo aad ugu talagalay ciyaarta Chelsea oo la ciyaari doono 3 bisha January oo la ciyaari doono ciyaartaana markii Nottingham Forest oo la ciyaaro haddana 1 January wuxuu la ciyaari doonaa Sunderland ayuu u tagi doonaa kadibna Chelsea ayaa gurigiisa ugu imaan doonta waa 3 ciyaar oo aad iyo aad runtii u adag 3 duuka gudbana Pep Guardiola waxaan isleeyahay Premier League ama labaad ama koowaad ayuu geli karaa ayaan isleeyahay sida xaajada ay ku socoto haddii ay ugu socoto marka Rodri waxaan qabaa booskiisi inuu hadda uu qabsaday ciyaaryahankii Nico Gonzalez oo laftigiisa Spanish oo aad iyo aad u fiican oo booskaas waxaa u malaysaa inuu si fiican u qabtay laakiin ma qabo Nico Gonzalez inuu heerka Rodri inuu gaarsiisan yahay ma u maleynayo Rodri runtii difaaca aad iyo aad u ilaaliya kubadda markuu qabtana difaaca asiga ayaa ka soo saara oo kubadaha markay difaac isku dhiibaan Pep Guardiola waa la soconaa kubadaha inuu gadaal ka soo bilaabo inta badanna nambarkii 6 kubadoo ka soo saara kadibna wuxuu u gudbiyaa weerarka ayuu u gudbiyaa welina aad iyo aad wuxuu ugu fiicayaa kubadaha kala bedelka oo dhinac bidixda doo jooga midigta ayuu kubad dheer ugu bedelaa qaasatan ciyaaryahanada geesaha ka dheelo si fudud ayuu kubada u gaarsiiya waxaan isleeyahay haddii Rodri uu soo noqdo ciyaaryahanka kale loo maleeyo inay keenaan sameeyo ay keenaan waxaan qabaa City heerkooda kor inuu kici doono ay xoogaysan doonto ayaan fili doonaa laakiin Rodri su'aashu waxay ka taagan tahay waxaan isleeyahay haddii oo ciyaarta oo gadaal ka soo geliyo waxaa laga yaabaa inuu 10 daqiiqo 15 daqiiqo oo isku leys inuu siiyo kadibna Sunderland oo ku bilaabo kadibna Chelsea oo kadibna saas oo u socdo oo in muddo ah ayaa waxaan la soconaa inuu dhaawac oo ku maqnaa 4 kulan kaliya ayuu Premier League oo ciyaaraba inta kale sidii oo dhaawac Partey ayaa dhaawac u geystay waa la soconaa xilligii Arsenal iyo City ay ciyaarayeen sanadkii hore uu soo kabsaday laakiin si fiican uma soo kabsan Rodrina waxaan la soconaa inuu muhiim weyn u ahay ciyaaryahanada dhexda ka dheelo oo nambarkii 6 aan u dheelan dadka ugu fiican inuu runtii oo yahay marka birito kooxda Sunderland runtii ande kooxdan Nottingham Forest waxaan la soconaa inay tahay koox ku ciyaarto kubadda dheer qaasatan gurigooda markay ka soo baxaan inaysan fiicneen Sean Dyche-na waa la soconaa inuu yahay tababara kubadda dheer ciyaar qaasatan xarqan 18 lagu rido oo madax iyo lagu shaqeysto xaaladoodana ma fiicno kooxdan Nottingham Forest marka waxaan isleeyahay City meeshaas guul ayay ka keeni kartaa oo waxaan isleeyahay inay meeshaas ay ka keensan karto markaan fiiriyo qaab ciyaareedkooda oo weerarkooda halan qaasatan gool dhalintiisa aad iyo aad ay u fiican tahay iyo ciyaaryahano fiican oo caawina ayuu haystaa waxaan la soconaa Phil Foden iyo ciyaaryahanka kale Francisca Cherki inuu haysto ay gadaal ay ka socdaan kuwaas kubada fiican soo gaarsiiya xataa ciyaaryahanka dhexda ka dheelo oo Hollandeeska Tijani gool dhalintii kubadda aad iyo aad inuu ugu fiican marka waxaan fili doonaa City oo niyadooda soo kacday in ay meeshaas ay guul kala imaan doonto ciyaarta kale aan rabo inaan dul istaago waa ciyaarta Brighton iyo kooxda Arsenal ay wada ciyaari doonaan Brighton waxaan la soconaa in ugu yaraan 9 ciyaartoy ay dhaawac ay ka yihiin 3 laga yaabo in aysan ciyaarin waa dhici kartaa labada kooxba dhaawac aad u fara badan ayay qabaan oo ciyaaryahankooda dhexda uga dheelaya Baliba ciyaariyaha Afrika ayuu ka aadawaan ciyaaryahan muhiim ah inkastoo Baliba sidii sanadkii hore uusan ahayn oo sida loogu dhawaaqay Man United rabta la yiri in xoogay dib u dhac oo ku yimid si kastaba haatee ma joogo marka waxaan isleeyahay 4 kulan ay ciyaareen kooxdan Brighton 4 kulan maysan badin oo xaaladooda ma fiicno Brighton tii horena ma inkastoo dib ugu soo noqday ciyaaryahankii Korea u dhashay South Korean-ka ahay kaasoo Mitoma oo dib u yimid dhaawac ka soo noqday halistiisana oo leeyahay oo garbaha uu ka dhelo aad iyo aad runtii oo u fiican yahay laakiin waxaan isleeyahay Arsenal difaacooda aad iyo aad u adkaan doontaa inay fursado ay sameeyaan
kooxdana waxaan la soconaa inaysan inta badan difaac ay adag aysan dhisin ay isku dayaan kubada inay gadaal kasoo bilaabaan taasna Arsenal haday ka goyso inay kubada ay ka dhali karto laakiin su'aasha waxay ka taagan tahay Arsenal numberka 9 yaa ka ciyaari doona ma Gabriel Jesus ayaa ka ciyaari doona mase Victor Gyökeres ayaa ka ciyaari doona ana waxaan isleeyahay waxa ka ciyaari doona Gabriel Jesus ayuu geey doona ayaan fili doona marka labadooda isku fiiriyo oo Jesus wuxuu uga duwan yahay geesaha ayuu dhaqaaqa geesaha markuu kubad laga siiyana wuxuu isku dayaa ciyaartoy inuu la soo gudbo kubadana meel fiican dhiga ama uu shuudo oo xogaa waxa u malaysaa in uu ka farsamo fiican yahay ayaan isleeyahay ciyaaryahankan oo Victor Gyökeres in oo ninkan Gabriel Jesus inuu ka farsamo fiican yahay ayaan runtii aan filaya meeshaasna waxaan isleeyahay wuxuu geey doonaa ciyaaryahankan ayuu geey doonaa laakiin su'aasha waxay ka taagan tahay numberka 10 yuu ka ciyaarsi doonaa ma wuxuu ka ciyaarsi doonaa ciyaaryahankan Odegaard mase wuxuu ka ciyaarsi doonaa ciyaaryahanka oo numberka 10 uga dheelay Eze waxaan la soo dhinac in loo durji Ezena sidiisaba waxaan ognahay 3 gool oo ka dhaliyay Tottenham kadib inuu soo waxba dhalin xataa kubada uusan dhigin taasna waxaan isleeyahay xorriyadii oo haystay oo ku haystay kooxdii Crystal Palace kuma haysta hadda waxa u malaysaa in dhinac laga dhilsi inta badan Odegaard sida uu yimid laakiin waxaan isleeyahay Eze de numberka 10 la geeyo oo loo fasax dhaqdhaqaaqiisa inuu kubada dhali lahay kubada fiican oo dhigi lahay hase yeeshee meesha waxa ka uga jiro Odegaard ayaa ku jiro dhinaca dii la geeyana sidii oo numberka 10 uga dheelay dhinaca uga ma dheeli karo oo waxaan isleeyahay xogaa dhaqdhaqaaqiisa iyo xorriyadiisa ayaa xogaa la yareeyay taasna waxay keentay ciyaartiisa inay hoos ay u dhacdo Eze marka adiga say kula tahay Eze iyo Odegaard iyo numberka 10 ka dheelsiileen inta badan tababaraha Odegaard ayuu aaminsan yahay laakiin aan waxaan isleeyahay laftigiisa Eze inuu aad iyo aad u fiican oo istaahilo Arsenal waa ciyaar gurigooda ay ku dheelayso ayna badi karto labada ciyaar ugu dambeysay waxaan la soconaa inay soo guuleysato Everton inay gool kulaad ay ku soo badisay ciyaartii kalena ay macnaha gool kulaad oo dhaliyay Gyökeres hal gool inay ku soo Everton uga soo adkaatay tii kale laftigeeda oo Carabao Cup-kana gool kulaad inay semi final ay ku yimideen oo meeshaas ay Crystal Palace uga soo adkaadeen marka ana waxaan fili doonaa in Arsenal haddii City hoggaanka ay qabato inay kasii qaban doonto ayaan fili doonaa ay Brighton gurigooda uga imaanaysa ay ka adkaa doonto 30 bishana waxa uu imaan doonto kooxdii Villa ayay la dheeli doontaa kadibna waxa uu imaan doona Liverpool iyo kooxo kale ayaa isku xigo marka xaaladda waxaan qabaa January ama February in labadan koox ay kala bixi doonaan Arsenal iyo kooxda City waxaan isleeyahay xogaay xoogoodii ayaa soo kordhaya Arsenalna waxaan filayaa gool dhalintoodii hoos inay u sii socoto haddaysan wax iska bedelinna waxaan qabaa in horyaalkoodii uu cariiri geli doono hadday gool dhalintii doodii ay kordhi waayaan marka waa sugaynaa bisha January hoggaanka ayaa qaban doona ma Arsenal ayaa weli sii hay doonto mase City ayaa la wareegi doonto bal adigana fikradaada nala wadaag